baby born weighing 18 kilograms, is the largest in the world. Now what you will not believe is what the mother weighed. Assalamu alaikum. Farxadda ugu weyn ee haweenka noloshooda soo marta ayaa lagu sheegaa inay tahay dhalidda carruurtooda. Waxaana sax ah in foosha iyo dhalmada ay yihiin kuwo adag oo xanuunkooda leh. Laakiin kadib helidda ilmo ay waalid u noqdaan haweenka ayaa ka dhiga kuwo ilooba dhibaatadii ay ku foosheen kuna dhaleen. Kadib 9 bilood iyo sugood oo ay sugaan dumarku inay helaan ubad ayna qabsato xaalado caafimaad oo kala duwan, way iloobaan dhibaatadaas kadib helidda jacaylkooda dhallaanka dartiis. balse waxaa jira xaalado u baahan taxaddar iyo in il gooniya lagu fiiriyo, daryeel heer sare ahna la siiyo. sida guud ee caadiga ah, ilmaha ayaa ku dhasha dhirir ahaan 46 ilaa 50.3 sentimitir, miisaan ahaan 2.5 kg ama kiilo ilaa 4.5 kiilo. wixii intaasi ka durugsan ayay yartahay macquulnimadooda ah inay si nabdoon u dhashaan. bal qiyaas xaaladda cunug shanjibaar ka badan sida caadiga ah miisaan ahaan sidee noqon kartaa fooshiisa. muuqaalkeena maanta ayaan kaaga sheekayn doonaa wiilka ugu miisaanka weyn caalamka ee dhasha iyo waxyaabaha la gudboon haweenka inta ay uurka leeyihiin inay sameeyaan si ay uga taxadaraan caafimaadkooda iyo kan ubadkoodaba. muuqaalka ayaa kaa qaadan doona dhowr daqiiqo oo waqtigaaga ka mid ah, waana kaaga mahadcelinayaa inaad ii oggolaatay inaan waqtigaaga kula qaybsado. balse ka hor muuqaalka, haddii ay tahay markii kuugu horreysay channelka aadna danaynayso sheekooyinka caynkani oo kale ah, fadlan like dheh, subscribe-na saar channelka, gambaleelkana furo si aad ula socoto muuqaalada aan soo gelinno ee waxtarka leh. aan bilaabo fiidiyowga. haweenay miisaankeedu weyn yahay gaarayana 272 kiilo ayaa timaaday isbitaal ku yaalay waddanka Austria si ay u dhasho cunugeeda uurka ku jiray, yacni fool ayay u timid. baaritaan kadib imaanshaheeda, dhaqaatiirta ayaa xaqiijiyey in miisaanka uurku jirta uu yahay mid lala tacajubo, maxaa yeelay waxa uu ahaa mid gaarayay 18 kiilo. waxa ayna ahayd xaaladdii ugu darnayd ee soo marta umulisooyinkaas. dhaqaatiirta ayaa go'aansaday in qalliin lagu dhaliyo ilmaha yar maadaama miisaanka oo saa'id ah aysan ku dhalanayn si dabiici ah ama dhalmada caadiga ah. qaar ka mid a dhaqaatiirtii ka qayb qaadatay qalliinka ayaa sheegay inay markhaati u ahaayeen dhacdo qariib ah in la arko, ayna u tahay khibrad iyo arrin ay dadka ka siiyaan talo wanaagsan. sidoo kale dhaqaatiirta ayaa sheegay marka hore inaysan aaminin inuu yahay hal cunug miisaanka intaasi leeg, balse ay u haysteen ama ay u qaateen mataano 2 ama 3 ah. qalliinka kadib ayay xaqiiqsadeen cunug 18 kiilo ah inuu ku jiray uurka haweenaydaas, jabiyena dhallaanka ugu miisaanka weyn caalamka waayahani hadda la joogo. sida la ogsoon yahay, miisaanka badan ayaan u fiicnayn dadka waaweyn iyo carruurtaba, waxaana ka sii daran ilmaha aan dhalan ee uurka ku jira inuu miisaankoodu weynaado. xaaladda miisaan weynida ee ay ku dhashaan ilmaha ayaa afka qalaad loo yaqaanaa macrosomia, waxayna si toos ah u dhaawacaysaa caafimaadka ilmaha yar. xaaladaha ku imaan kara ilmaha ku dhasha miisaan weynida waxaa ka mid ah sokortiisa oo hoos u dhacda, dhaawacna u geysata keliyaha, wadnaha iyo maskaxda. unugyada dhiigga cascas oo bata, kuwaasi oo yareeya socodka dhiigga kadibna waxyeeleeya neerfaha iyo maskaxda ilmahaasi.
dhacaanka bilirubinta oo dhiigga ku bata saameeyana dahaarka maskaxda ilaa ugu dambayn uu ka baabi'iyo. dhibaatooyinka kale ee miisaan weynida ilmaha ku dhasha ayaa waxaa ka mid ah neefsashada oo ku xumaata dhallaankaas iyo ugu dambayn jimniin soo gaara hooyada iyo kalxanaha ilmahaas yar markii uu dhalanayo. ujeeddada sheekadayda haddaan u imaado, haddii aad doonayso inaad dhasho ama aad uur qaaddo, waxaa kuu wanaagsan inaad ku dadaasho caafimaadkaaga iyo kan dhallaanka aad dhali doontid oo uu xil weyni kaa saaran yahay. waxaa jira dhowr tallaabo oo aad qaadi karto si aad ugu dadaasho caafimaadkaaga iyo kan cunugaagaba, sida inaad ku dadaasho cabidda biyo badan, socodka maalinkii 30 daqiiqo oo kale, booqashada xarumaha caafimaadka ee hooyada iyo dhallaanka si loola socdo xaaladda uurkaaga, iyo inaad soo gudbiso xaalad kasta ama dhibaato kasta oo qariib ah ee aad aragto. muuqaalkeenna maanta intaas ayuu ku egyahay daawade. haddii aad ka heshay muuqaalka, fadlan like saar, hana iloobin inaad subscribe saarto channelka, gambaleelkana aad furato, commentiskana iigu reeb haddii aad rabtid muuqaaladani oo kale. fiidiyowga inoo xiga insha Allah.